waxaanu ku sugannahay magaalada Qabridahare ee xarunta gobolka Qorraxay waxaad u jeedaan tog naga dambeeya oo biyo marayaan togan biyuhu hayaan wuxuu biyaha ka keenay gobolka Faafan magaciisa waxa la yiraahdaa toga Faafan waxaana loogu magac daray gobolka Faafan togan waa tog cajiib ah oo aad u taariikh dheer aad u dheer wuxuu ka soo bilowdaa gobolka Faafan wuxuu soo maraa gobolka Jarar magaalada Dhagaxbuur ee caasimadda gobolka Jarar ayuu soo maraa sidoo kale wuxuu maraa gobolkan Qorraxay magaaladan caasimadda u ah gobolka Qorraxay ee Qabridahare ayuu maraa wuxuu sii maraa gobolka Shabeelle wuxuuna kaga daraa biyahan webiga Shabeelle magaalada Qalaafe meel u dhow sidoo kale wadadan aan hadda dusheeda saaranahay ee ay biyuhu hoos marayaan waxa la dhisay xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka xilliyadaasi oo ahayd intii u dhaxaysay 1940 ilaa 45 waxaana wadadan dhistay dawladda Talyaaniga xilligii la dhisay ilaa iyo maanta wadadani waa ay shaqaysaa oo dadka iyo gaadiidkuba isku si ayay u dulmaraan inkasta oo wada labaad loo sameeyay magaalada Qabridahare oo labadaba la adeegsado waa magaalo taariikh dheer magaalada Qabridahare dhanka soo afiirsid waxyaabo cajiib ah oo taariikhiyan ah ayaad arkaysaa barnaamijyo fara badan ayaanu idin soo gudbin doonaa magaalada intaan ku sugannahay iyo guud ahaan gobolkan Qorraxay nala socdo ayaan idin leenahay sharaf iyo karaamo